bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan akhyaarta wadayga daawanaysa ay kusoo dhawaada wararka caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ood beejkan ka daawataan hadahan iyo hadaha kale oo lamid ah maqal wareedkan intuu soconayo hadduu eebbaydmo waxaynu ku eegi doonaa dowladda dalkaasi Itoobiya iyo Jabuuti oo ku kala booday saami 60% degada Dachura ee laga leeyahay dalka Jabuuti ama Djibouti iyo damaca Itoobiya oo noqday mid dhab ah waa 13 bisha afraad 2026 qodobkaas oo faahfaahsan intaan ku soo gudbin fadlan maqaalkan share garay oo u geey dadka u baahan macluumaadkan inay wax ka ogaadaan aynu ku bilownay saaxiibayaal saad maqaalka hordhigiisa aad ku maqlayseen dowladda dalka Jabuuti ayaa shaacisay in Itoobiya ay diiday yabo saami oo dhan 60% taasi beddelkeedana ay dalbatay Itoobiya saami iyada u gaar ah dekedan oo ku taala waqooyiga dalkaasi Jabuuti ee Dachura una dhow xuduudka magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya ayaa dhankeeda dalbanaysa inay hesho marin biyood oo gaar ah iyada oo ka madax bannaan taas oo barbar socota saamiga ganacsi ay soo bandhigtay dowladda Djibouti waa sida warka loo dhigay xogtan ayaa waxa shaaciyay hay'adda dekedaha iyo aaga cashuuraha ka caagan ee Jabuuti ee loo soo gaabiyo DBFZA ayaa tilmaamtay in wadahadallada u dhaxeeya labadan dal ee deriska ah kuwaas oo xiriir dhaqaale leh oo udubdhaxaad u ah ganacsiga gobolka waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal gudoomiyaha hay'adda DBFZA Abuukar Umar Cabdi ayaa shir jaraa'id qabtay ayaa xaqiijiyay Jabuuti iyo Itoobiya ay soo bandhigeen saami ganacsi dekada Dachura balse mas'uuliyiinta Itoobiya ay diideen taas ayna aqbali waayeen waxaan nahay kuwa aad u daahfuran buu yiri dalkeenuna uu u furan yahay saamiga 60% Dachura ayuu yiri Cabdi dowladda Itoobiya ayaa diiday soo jeedintaas waxayna dalbatay marin u gaar ah iyada oo dheeri ah oo saamigana markaasi ay ogolaan doonto Cabdi ayaa arabka ku adkeeyay in Jabuuti ay diyaar u tahay inay la shaqeyso Itoobiya ayna sii wado soo sheegay tasiilaadkana ay bixiso laga maarmaanka ah ganacsiga ee dalkaas si wanaagsan ay ula shaqeyn doonto dowladda Itoobiya waxayna siin doontaa wiil adeegyada ay u baahan yihiin si loo isticmaalo dekedaheena albaabaduna way u furan yihiin ayuu ku soo gabagabeeyay Itoobiya warkiisa wasiirkaasi saaxiibayaal waxyaalihii dambe ka soo cusmanaa arada muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaa fadlan maqaalkan share garay oo geeyid oo baahan nabad